Yeah, yeah, yeah. khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha forex ay dharbaaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhulbeereed badan dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha forex shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal xoololey gedisley ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata ah dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xaraysnaayeen shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhexleh bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano ganacsato iyo odayaal waxay sidoo kale xayeysiisyo ku samaysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada saraakiisha dawladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwa kale iyadoo lacagaha soo galayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan kuwaasi oo lagu soo xerogeliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada la isugu dhufto bishii Maarso ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku waraystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u waraystay horraantii sanadkan waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska beddeleen dadkaasi aan waraystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciye oo uu wax ka aasaasay mid ka mid ah asxaabtiisa kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan waraysanayay barnaamijkan horta fikirkiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxa waaye magaalada waa kala socotay lacagta waa la siinayay markii la gaaray coronavirus xaaladdu xumaatay bishii Abriil ilaa iyo up to now bishaan marayna bishii 8aad waxa lacag lama hayo lacagta waxa la leeyahay Turkiga taala bilba bilka dambe waxa la leeyahay bishaan la qaadanaya marka barnaamijka kulli hadaan fiiriyo barnaamij wuxuu eegay isku dhamaaday markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay bal iga sheekay xilligaas marka hore waa kulli isaan ku sheegay marka hore waa soo jiidashay leedo waxa waaye barnaamijku waa nala fiicnay waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameeyo bal marka Soomaaliya waa taqaanaa beesha lagu yaacay ku yaacda moogta shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gabi ahaanba xilligan way kacday dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibrahim Macallin shaqadan waxba kama aqoonin rag maarta oo nin kale saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macallimiin way rag shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay raggii baahda bil January 1 wixii aan furnay January marka ay dhamaatay lacag yar la bixiyay Febraayo marka ay dhamaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyana waa iyaga dhaqaajiyay dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradoodu intay tahay akoonay noo soo direen ay leeyihiin lacagii oo kuwaana meesha ay ku khasaareen marka waxay ku qornay 250 lacag total guud ahaan oo macaamiish laga qaaday 250 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna ma sii karnaa anaga $250,000 miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta $1 lagama hayo $1 lagama hayo adiga imisa ka maqan marka shakhsiyan $13,000 maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo hormay batatan baan waxa ka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuuray inuu yahay wax ka jira ma asaaska shirkadda Kobciye kadib waxa isaga madaxiisa iyo aqoonta ay u lahaayeen darteed lacag ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobciye wallahi anadu waxa iga maqan $250 waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aamintay saaxiibka magaciisa ku aaminay asaga wajigiisa magaciisa ku tagay marka mar hada wajigiisa ku tagay asayna ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay waxa kale waa meesha marka aad heshaan helaada raje intee leeg baa kugu jirta inaad lacagta heli doontid wallahi been ku sheegay macnaheedu ilaa hadda niidii ma gashay lacagtaas hadda heli doontaaba
mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan 5 milyan oo dollar sida ay muujiyeen xogta ay hayso dawladda Soomaaliya kadib markii ay laamaha amnigu u dhaceen xafiiska shirkadaasi waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo kaliya raadka lacaga lagu bixiyay mushahar ahaan iyo qaar dad loo celiyay iyo ilaa 1 milyan oo dollar oo bankiyo kala duwan ku jirta lacagtaasi oo haatan dawladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi Looga Yuusuf Cali dokumentiyada ay dawladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin Looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan 3 milyan iyo 700 kun oo dollar dadka ila soo xiriiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin mulkiilaha shirkadan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayay Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan isla markaana uu u sheegay saraakiisha amniga markii la xirayay sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayay 7 Abriil 2020 magacaaga laba magac baad xustay Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Cawaale magacaaga saxda waa maxay aniga magacayga saxda ay waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax kuna dhashay magaalada Hadaftu ee gobolka Sanaag magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa mitaal oo kale qofka xataa iska hal magac xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa anigu passport-ka waxaan qaatay 2015 baan qaatay 2015 way isna muqdisho xawiyaan safarkii ugu horeeyay ku tagana wuxuu 2018 bishii saddexaad baa ku tagaya dad badan baa hadda waxa laga dhigayaa magac la xataa oo arkay dad badan wax ka qorqoraya dad badan wax ka yiri ee magac anigu aan samaystay oo xawiyaan qaab dadka muqdisho aan xawiyaan aan samaystay magacayga bedelay si aan hadhowto xawiyaan aan la soo qaban saas oo kale aan uga taxadiraya passport-ka anigoo gar waxta passport-ka laga bixiyay 2015 saddex sano ka bacdina muqdisho waa tagaya xataa markaan passport-ka qaadanayay حتى النادي اللي خوش الحبيب من بتوقع نوام بنتامين مقدش أتجد مركب باهيات أنا جديد قوية ومركب يوخص بينا المجا عقاته أيام قصة ويستي لكن مجا أنا نقول أحس بيقولي هاي معها مجا رسمي جاي ومحمد أحمد عواله عباها يبقى أنا إنسان ويا عبا والله حويا اللي يقدر محمد عوال لكن مجا عيجا صح لو نقول عنية تذكر أول شيء يدخل الصومالية محلية واحد مجا عيجا محمد أحمد حاجي فارح marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dawladdu hayso ku qoran waa magac been abuura magac been abuura ma waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo documents kale iigiisi way inta soo ku soo koobaya warqadda damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyay inuu hayo 3 milyan iyo 700 kun oo dollar oo ay leeyihiin dad shacab ah waxaa sidoo kale warqadaas uu ku cadeeyay ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka arooriyay muddo 60 maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysa 8 Abriil kuna eg 8 Juun 2020 haddii uu muddadaas ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqadda damiinka waa la soo daayay waxa lagu heshiiyay in kombiyuutarada laga qaaday iyo felashii dadkii dokumentiga maalgashay investmentka ah ee la qaaday ee xarunta FRC la geeyay in la keeno lacagtina xayraadda laga qaado lacagtooda la siiyo bilban xawiyaan sugaayay oo deeshadeyn laga qaado xayraadda xoolaha oo dadka waxooda la siiyo systemka suushii shirkadu way hore u shaqayn jirtay si dalka laga sii wado maadaama cidi hadda yeedanaysaa oo hadda aniga igu dhegan oo deelo waxuu naga qaatay ama waxuu naga lunsaday aysan jirin marka waxay wax ka dhamaan laayihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidoodina haysata dokumentigeedii dadka waxa weeyaan haysata kombiyuutarada shirkadda haysata ilaa hadda waa laga kala laayay dadka waxoodii siiya loo fasaxo waxooda dadka la siiyo aniga bilaan joogay meesha markaan joogay waliba safar baan ku ahaa oo ku yimi shaqooyin badan baan qaban jiray waa ka yimi markii dambe oo de institutionka xamar jira handadaad badan markaan deeriyay wixii baan rabaa oo dadkii waxaan waxooda siiyo aan shaqadayda siiyo handadaad badan baan kala kulmay marka hadda Hargeysa baan ku suganahay Hargeysa joogaabaan marka waxaan leeyahay dadka haddii waxooda la haween siiyo waxaan ka dhacay ma jirto wixii aniga dhankayga soo jirina intii aan Hargeysa ku sugnaa baan dadka waxooda siiyay hadda waqtigii ballanteed qabsatay markii lagu soo deyniyay 2 bilood waxay ku buuxday June 8 marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii lacagihii ay ahayd inaad bixiso goormaad ku bixinaysaa laba arrimood weey arrinta koowaad waxa weeye marka muqdisho joogo bil aan ku sugnaa waxay ahayd lacagtaas in xaraada laga qaado oo dadka waxooda la siiyo qodob Soomaa qodobka labaadna waxa weeye in kombiyuutarada soo celiyo dokumentiga shaqada laga qaado soo celiyo ayaan ku weydiinayaa qaabkee wax loo bixin karaa aan ku weydiinayaa qaabkee house qofka dambi waa geli karaa laakiin materialku dambi ma geli karo sidee 16 kombiyuutar loo qaatay dadka dokumentiga loo qaatay waa gad dokumentiga dadka hadda dhex yaala afar saddex yaala
waxa lagu dari karo iyo waxa laga saari kartaana warmahaya qofku isagu dambi waa geli karaa hal xiro oo anigu taaba diidaniba laakiin hantidaada iyo khaaska ku ahayd ee asadka ahayd baan qaadanaya oo xoog baan qaadanaya oo xisaabtaadii baan xoog kula wareegaya oo saalo xoog bixin baan waxa rabaa xisaabtan waa ka xayraya dokumentiga waa ka qaab kasta waa kula dagaalami karo aan xoog bixin karna waa ka istaagaya taas macquul noqon mayso sii deynta looga Yuusuf Cali waxaa gacan ka geystay 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa Axmed Ismaaciil Maxamed waxa uu booliiska Soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ah mid nafsi iyo maalba ka yahay looga Yuusuf Cali waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkadda Future Trader muddo 60 casho gudaheeda lacagtaasi oo cadadkeeda uu qoray inay tahay 3,700,000 $. xildhibaan Axmed Ismaaciil oo uu la xiriiray galka baaristu waxa uu bixiyay fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanadda uu siiyay booliiska waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga Yuusuf Cali waxba ka qaldamin waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo lacagta ka xayiranna xayiraadda looga qaado laakiin waxaa xusid mudan in warqadda damaanadda ah ee uu qoray xildhibaan Axmed Ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaasi ay shardi u ahayd in dawladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombiyuutarada ay ku shaqaynaysay shirkadda Future Trader waxaan xildhibaan Axmed Ismaaciil weydiiyay inuu wax ka leeyahay eedda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga Yuusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay eedda waxaa iska leh ciddii lacagta xayirtay lacagtiisana u celin weyday waa loo hanjabay taasi ayaa sababtay inuu ka baxay Muqdisho ka sokow in shirkadahan ay lacago malaayiin dollar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxaa dhinaca kale ay shaqaynayeen sharci la'aan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay-adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha Forex Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya shirkadahan dalkeena ka jiray muddada gaaban dhibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira maaha waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabeedna dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada weliba u haysan dabeedna dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yaroo koobanna helay fursadda ay wax ku khiyaameeyaan dabeedna kala isku wada dayday oo tiri ahaan laga yaabee muddo aan ka badnayn 3 ilaa 4 bilood baa laga yaabaa wax 80-90 magacyo shirkadeeda oo xayeysiisa meel walba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arrinta opportunity ama fursadda ay u arkeen dadka ka dambeeyay inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay ma ahayn wax hore u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa in kolley anagu macluumaadkaanu hayno inaanay jirin shirkado forex ku shaqaysta oo hadda wax cabasha oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanan arkin dawladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 91 shirkadood oo ah kuwa Forex hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo kaliya inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah sidaasi oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqaystaan gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyay in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqayn karaan oo sharci ah ma jiro horta hay'ad bankiga dhexe ka haysato sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo forex ka shaqeysa haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay'ado kale oo dawliyan ka haysana laakiin de sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxa looga dambaynayaa bankiga dhexe markaa isagoo ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin sidaa waxa qoraya sharciga bankiga dhexe ku salaysan yahay markaa de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aad sheegaysa ay haystaan waa jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelaha saxaafadda ka hadla ruqsad baanu haysanay laakiin runta haddaan kuu sheego ma jiro ruqsad wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah ruqsadaha la regulate gareeyo ama leh cid xeer nidaamisa iyagu uma xil saara inay bixiyaan
dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonnada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad 20 milyan oo dollar. hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay 100 milyan oo dollar. tusaale ahaan mid ka mid ah shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhaxaysa 20 ilaa 30 milyan oo dollar waxa account-keeda laga helay 1 milyan iyo 300 kun oo dollar. shirkad kale waxa account-keeda laga helay 1 milyan iyo 500 kun oo dollar. hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay 5 milyan oo dollar. macluumaadka uu helgalka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay'adaha sharci ilaalinta. tallaabada xigta waxa weeye horta dad badan baa runtii waxyeelo ka soo gaaray oo ku caydoobay ama xoolo kaga lumeen. dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ay ka mid yihiin. iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasuna waajibkooda ka gutaan. waxaan u malaynayaa tallaabada ugu habboone dadka wax ka maqan yihiin de ay qaadi karaan waa taa. shirkadaha laftoodii de hadda ma jiraan oo wax weli hawshii problemkii hawl taagan, dhibaato taagan maaho ah in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. marka waxaan u filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xoolahooda ku maqan yihiin inay raadsadaan oo qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin iyo ciddii wax ka qaadee ay u dacwoodaan oo dacwado uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dembiyada wax ka qabta. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.